السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wuxuu galay Kim caalamka video gameska wuxuuna gacanta ku dhigay suuqa video gameska oo hadda shirkadiisa ka shaqeysa horumarinta video gameska waxay ka howlgashaa in ka badan 60 dal waxaan hadda Kim lagu tiriyaa ragga hormuudka u ah ganacsatada dalka horumarka weyn ka gaaray dhanka tiknoolajiyada ee koonfurta Korea dhanka kale waxa Kim gudaha dalkiisa looga yaqaanaa boqorkii video gameska haddaba sidee ayuu ku soo bilaabay Kim socdaalkiisa guusha wuxuu dhashay Kim Tak Jin 14 bishii Maarso sanadkii 1967 wuxuuna ku dhashay isla markaana ku soo barbaaray magaalada caasimadda u ah dalkiisa ee Seoul wuxuu ahaa yaraantiisii wiil aad u jecel tiknoolajiyada gaar ahaan wuxuu aad u xiisayn jiray waxa loo yaqaano video gameska markii uu ka qalin badashay dugsiga sare wuxuu iska diiwaan geliyay jaamacadda ummadda ee Seoul wuxuuna ka mid noqday ardayda baranaysa cilmiga tumaalnimada wuxuuna shahaado baaj oo tumaalnimo ah ka qaatay jaamacadda sanadkii 1987 Kim ayaa intii uu dhiganayay jaamacadda hormariyay tiro badan oo software ah qaar ka mid ah softwareadii oo Kim ka shaqeeyay waxay dadweynaha koonfurta Korea u sahleen in afkooda wax ku qoraan ayagoo isticmaalaya aaladda kombiyuutarka kadib markii uu Kim helay sanadkii 1991 shahaado master ah oo dhanka tumaalnimada korontada ah ayuu ka shaqo bilaabay qaybta cilmi baarista ee shirkadda Hyundai wuxuuna Kim hormuud u ahaa tumaaladii dalkiisa koonfurta Korea keentay sanadkii 1995 adeega internetka waxaana adeegaasi lagu magacaabi jiray Amnisoft sidoo kale Kim markii uu ka qaatay jaamacadda ummadda ee Seoul shahaadada PhD-da wuxuu si qurux badan oo horumar leh u soo saaray software lagu magacaabo Hamisoft ka oo dadweynaha koonfurta Korea u fududeeyay in afkooda si sahlan oo waliba qurux badan wax ugu qoraan ayagoo adeegsanaya aaladda kombiyuutarka Kim ayaa markii uu in muddo ahaa shaqaale kadib go'aansaday inuu shaqaalnimada shirkadda Hyundai isaga tago wuxuuna isla sanadkii uu shaqada ka tagay asigoo kaalmaysanay 16 ruux oo saaxiibadii ah aasay shirkadda maanta suuqa video gameska qabsatay ee lagu magacaabo NCSoft waxayna shirkaddan soo dhaweyn ballaaran ka heshay bulshada caalamka ayadoo internet ku faafisay video games aad ay ula dhaceen malaayiin ruux oo dunida daafaheeda ku nool kuwa oo markas isticmaala isla markaana ku meelandaala video gameska ay shirkaddan soo saarto wuxuu Kim maalgelin xoog leh ku bixiyay web noveliska iyo shakhsiyaadka xal dheer sameynta sawirada dhaqdhaqaaqa waxayna tirada dadka isticmaala adeega video gameska ay shirkad soo saartay gaareen sanadkii 2015 1 bilyan oo ruux wuxuu hadda Kim tartan adag kula jiraa ninka lagu magacaabo Kim Jong-jo oo ah aasaasaha iyo ninka iska leh saamiga ugu badan shirkadda caalamiga ah ee Nixon oo ah shirkad ayadana ka shaqeysa horumarinta video gameska isla markaana ka howlgasha in ka badan 60 dal waxayna shirkaddan internet ku soo bandhigtaa adeeg badan oo video games ah wuxuu Kim sanadkii 2014 ku maalgeliyay shirkadiisa 5 bilyan oo ah lacag dalkiisa si loo soo saaro video games cusub dhankan loo hormariyo kuwii hore u jiray waxaana kamid ah video gameska ay shirkaddan soo saartay Lineage 2M Blade and Soul 2 Blade and Soul M Blade and Soul S iyo Ion kadib markii uu Kim kaalin 18aad ka galay liiska taajiriin dalkiisa dhankan uu yahay nin aad u xiiseeya kubadda usha ayuu sanadkii 2011 aasay koox ciyaarta kubadda usha dhan kale wuxuu Kim ka soo dhex muuqday liiska ragga ugu hodansan dunida ee ay soo saartay sanadkan 2020 majalada Forbes waxayna Forbes ku sheegtay qadarka xoolaha uu haysto Kim ilaa iyo $2.8 bilyan wuxuuna hantidaani ka tacbay video gameska